adiga xaafadda aad joogtid raadkaaga waa la yaqaanaa habeenkii xaafadda tagtid waa lagu garan sababtoo qofku wuxuu soo gadanayaa hal joog oo kabaa halka joog buu wuxuu haysanayaa dee sanad waa run ama 2 sano haddaysan ka go'in markaa hadday ka go'do xitaa wuu kabanayaa qofku moogta u tolanayaa haa marka habeenkii taasi igu dhacno raadkayga aan loo garan oo aan la iiba toomin mid aan ilmo adeernahay kaafi shaaciyey halkan baa ka salaamayaa oo adeerkayaan saaxiibanahay hadda xitaa oo markaa reerkanaga ag degan baan u tagay waxaan ku yidhi niyow gabadhaasoo la ilaaliyaan rabaa inaad soo shukaansadee waana xogta waa la wada hayaa moogta dee oday hebel gabadhiisaan rabaa inaan u tago soo shukaansadee niyow kabaha ii bedel baan ku yidhi oo kaba cusub hadday kugu xaraysan yihiin oo aan la garanayn sii habeenkaa kaba cusub buu isiiyey marka oo casarkii baad kaba cusub soo diyaarsatay casarkii baan diyaarsaday kaba cusub sii diyaar garooba haye raadkii marka dacaskayga waa la garan lahaa soo maha oo waxaa la oran lahaa wiilkiina xala nagu soo dheelmaday wiilkiina naga ceshta waa run aniga horta cidnaba ii malayn mayso inaan wax shukaansan karo ama aan wax u dheelman karo xitaa eedadii baan ka yeelin haddii duqda ku dhahdo wiilkiina naga ceshta moogta ka yeeli mayso dee xuur baan ahay cunug yar baan ahay inaan wax shukaansan karo xitaa looga maleeyo marka waxay tiri war xalay dhib baa nagu dhacay allan iyo odayga iyo islaantu say gabadha u ilaalinayeen say muhiim ugu ahay waxaa ka dareemaysaa waxaad moodaa xalay in macnaha qof laga dilay duqdi markay noo imaanaysa xitaa qof faraxsan ma aha wejigeeda xitaa naxdin baad ka dareemaysaa iyo murugo iyo murugo gabadhaa macnaha duqdi waxay tiri nin baa xalay noo soo dhacay balaaya ka dhacday oo mucjiso ah waan gartay bay tiri eedadii baa ka koobinaysa annada sheex baan cabaya caddaysa hoos baan dhexda ka haya haa waa ag fadhiya ninka xala filinka sameeyey baan ahaa moog duqdii bay ugu ramaysaa waxay tiri nin balaaya ka dhacday oo aanan garanayn oo kabo jaandheer ah oo cusub wata baa xala noo yimid adeerkay haddii kabihiisa caadiga haddaa soo qaadan lahaa kaafi shaaciyaa noo yimid bay dhihi lahayen moog waa la garan lahaa waa la garan lahaa waan gartay bay tiri say tiri naa ninka waxa dhacday guriga meel shan wax ka ilaalinayna meelaan ahayn buu reerka ka jabsada daaraddii dambuu naga jabsada ood buu inta daaraddii ka qaaday oo gabadhii gadaal uga soo dhacay bulsho xalay dantiisii hawlihiisa gaaray oo gabadhii aduu amnigu ma sugnay tiri nin baa xalay noo soo dhacay balaaya ka dhacday waa raa qaadnayo waxaan kaloo sameeyey yaana kaa sheeka dhaafina markaan guriga ka baxay toos xaafadda uma gelin ilaa lagu garanaya hadda xaafadda toos u geshid toos uma gelina waxaan maray halka carri jirta inta ka wareegay baan adeer kaafi shaaciyihii aan kabaha ka soo qaatay shishe inta guriga kasoo galay baan xerada ariga waa asna waan la sii ballamay inuu ariga raadka subaxdii lagu dareeriyo oo raadkayga saan loo garan bal halka taxadirku halka iga barayo saa raadkayga loo garan waxaa ku iri ariga ku dareeri baan ku iri meesha guriga xeradaa hormaraya haa aroortiibu inta soo kacay xilli ariga aan la sii dayn waana dee rag waa iscaawiyaan moogta aroortiibu inta soo kacay buu ku sii daayey ariga meeshii aan maray habeenkii raadkaygu arkay halka baan kasoo wareegay xerada arigaan maray halkaasaan ka maray xerada ariganaga haddana halkaa kasoo maray saan anna ariga ku sii daayey meeshaan kasoo galay arigu hadduu raadka maro caliyo mihii waad ku dhaqanta waa garanaysaa waxyaabaha lagu raadgata waxaa ka mid a kurta dhulka hadduu kur leeyahay waa lagu raadgataa roob hadduu da waa lagu raadgataa oo raadka dee haddii roob ka dambeeyo raadka waa qarsoomaya xoolahana waa lagu raadgataa arigii baan kusii daayo ilaa cabaar adeer gurigiisii baan arigii subaxdii aan dareerinayay nagamana fogo gurigiis duqda waxay tiri nin balaaya ka dhacday oo mucjiso ah oo jinni la tegay baa xala noo soo dhacayoo raadkiisana waa naga ambadayoo halka carri jirta buu aaday 12 saakan sii raadhayay halkaasuu ka baxay oo waxaan istiri malaha waa reeraha halkaa degayoo reero cusub bay tilmaantay oo meelaha soo degayoo waa la isgaranayaa moogta intii hore meesha degneyd kuwa cusub oo lo'leya oo midha halkaas degay maalin dhaweyd buu midha nooga yimid oo mid balaaya ka dhacday oo masiibaha guriga gadaal uga soo dhacay duq eedaday marka sheekada waxay xiise ku leedahay eedaday waan usii sheega inaan wax shukaansaday weydada way ogtaha haye bay kuwaas wayna qoslaysaa oo xaafadan inaad u dhacday eedaday waa ka horaysaa waan u sheegay eedaday waxba kama qarsan jirin saaxiibaan ahayn aabbahay waaqay aayay ii ahayd aayaday aabbo qabay bay ahayd eedaday markaa waa qoslaysaa 12 subaxdii bay qoslaysaa 2 deeq marka duqdiina ma shakinoo
dee malaha isleed waxay naagtan kuugu qoslaysaa gabadhan jinniyo aad daba dhigato ilaalinaysid iyo soo dhicitaankan bay ku qoslaysaa maba aysan soo malaysanba wiilkeeda wax shukaansado saasay u qoslaysaa mo haye subaxdii oo dhan baa anigii eeddo markay naga tagtay baa aabba xitaa noo yimido subaxdii oo dhan baa sheekaysanaayo qosol ba adigu wixiiba aabba uga dhacay aabba xitaa waa malaysan la iyo inaan wax soo shukaansaday oo xitaa libin kale aan qaaday oo aabbahay baa ku yidhi aabba xalay wax soo shukaansada wiilku markuu xor yahay dee odayaashu iyo dhalinyarada markaa ragga meesha joogo waa la kaftamaayo dee ninka aan wax shukaansan jirin jilicsan ninba looma yaqaano magacyaa xitaa loo bixiyaa moogta waa run aabba xitaa dee nin adag baa markaa ka noqday oo habeenkii haddaan gabadhii oday hebel ilaalin jiray haddaan gabadhii sii shukaansaday aabba agtiisa xitaa markaa libin baan ka qaadayoo xitaa macawis baa la iisoo gaday qoor sifays la oran jiray oo cusbayd baa la iisoo gaday haye ayaan kadib sheekadii waa soo dhammaatay oo waa dheer tahay haddaan kasii sheekeeye ayaan kadib biyo shubkii gabadhii waxaan gaarnay go-aankii aan kula bixi lahaa waqti dheer laysma shukaansado baadiyaha sababtoo ah saan kuu sheegay bilowgii aan kuugu sheegay inta badan waa laablakac guurka baadiyo oo ninku ama nin saaxiibkiisoo guursaday oo sanadkan ka hor guursaday buu ku hiyo kacayo wuxuu dhahaa hebelbu waa guursaday aduu maanaa keentid ama markaas dhiiq iyo meel doog ahoo nimca ka dhacday baa lagu guursadayo markii caawa lala baxo habeen dambe lala baxo habeen saddexda lala baxa sideedoo kale dee ninku asagoo xitaaba guur gaarin baa ficil qaadaa gabadhii marka waxaad ku heshiiseen inaan la baxo inaad la baxdo tan baa dhibaato ka taaganta haye shukaansigii baan dhibaato ka soo mara la bixi see ku suurtageli karaa weeye waa gartay waan fikirayo nin baa iska dhigayoo kaafi baan ku laabta saaxiibkay adeerkayda ah haye waxaan ku yidhi adeer xaalku waa taagan yahay waxbaa taagtaagan habeenkaa aan go-aanka gaarayo aan rabo gabadha inaan la baxo habeen ka horreeyey ba cali waxaa dhacday wax aan miyiga aan laga aqoonin oo inta badan dhaqan aan ka ahayn laakiin dee adduunka wax walba waad ku arkaysaa baa dhacayoo gabar baa niman intay la baxeen bay soo dhibaateeyeen oo xoogaa soo farxumeeyeen kadibna meeshii kala baxeen bay kusoo celiyeen inkastoo dee baadiyaha dadku waa isgaranayaane waa la kala xaalaayo waa la isgaranayaa moogta qofkii dhibkaas sameeyey gabadhii waxaa dhacday in ay cabsatay markaa taa halkaana cabsi baa uga jirto ayaduna way yarta nin la isku halayn karana ma ihi dhibaato gabadha horta aniga welwelka ay haysatan ayada haystaa ka weyn horta kow nin la isku halayn kara ma ihi oo nin yar baana haye waaba dee lagaa qaadan karaa oo dhexa sii maraya la qaadasho maba ahana xitaa nin ay gabadhi dabageli kadha ma ihi waa nin yaroo xuur oo iska xuur da- baana yar oo- waana gaabnaayo wax yaroo gaaban haye da'na waan u yaraa waana jab yaraa haye gabadhuna waa iga laf dheertaa markaa waa isla egna hadda ahaan saabiriin baa la oran jiray halkaa baa ka salaamaya hadda waxay joogtaa caabudu saabiriin hooyadeed waa dhimatay allah u naxariisto waa dhaweytaa niman tuugaha oo nimankan wax qaadqaada taleefanada baa la ii sheegay inay dileen marka ilaahay ha u naxariisto hooyadeed waa uga tacsiyeynayaa allah yarxam saa sheeka ku maqlay anugu waa maqnaa haye marka laakiin caabuda way joogtahay oo caruur badan bay dhashay oo hooyay noqotay oo gadaashay oo aniguba aabba ahay kama yaraystee aad iyo aad laakiin way weynaatay adugu waa la guursaday kadib gabadha stresska haysta iyo dhibka haysta baa kayga ka weyn mar waxay leedahay see guriga uga dhuumataa kow oo ninkan ku raacdaa mar waxay leedahay see ilmahan yarkaa lagu aaminaa reerkaaga uga dhaadhicisaa reerkii intaa ku ilaalinayay cunug baad la fakatay see uga dhaadhicisaa hadhow dee caqabad bay ku noqonaysaa waa runta haa xitaa haddii dee nin weyn markaa la fakato waxbay oran kartaa moogta waa laga xaali karaa mar kalena waxay ka cabsanaysaa bixitaankan iyo balaaya naga dhiiqaysaa hawshii maxaa markayga bal kusoo beegay waayihii hore wax lala baxbaxayay may wax kufsadaan inkaan allaha ku ride gabadhii waxtaa way weydiisa waxay tirini anugu waa cabsanayaa gabadha haddaan niman kala badan ku kaxaysano aniga xitaa qudhaydu waa cabsanayaayo gabadha inaan la baxo oo aan ilaa iyo magaalada markaa waxay noo jirtaa malaha halkan iyo qabri bayax ka shishay qabri bayax imsay hadda noo jirtaa waa malaha 30 kilomitir haa qabri bayax aduu way ka durugsantaa haye intaasoo baadiya anigii gabadha keligeed ma jari karno waa caqabada kale oo iyadu ay xitaa ka cabsanayso caawada qabaan soo aadayna meesha aan wax ka shukaansanaya waa dhowr go-aan baan gabadhi waxaan ku gaarnay ugu dambeyn inaan israacno
waxayse ka fursan weyda inay dhahdo gaari noo keen na kaxeeya. gabdhaha qaar raggu waa kala fiican yahay calayo, ninba dabaqad buu ku noolyahay. aad iyo aad ninbaa gabadha gaari kula baxa oo tuulada gaari keena, oo gaari kasoo ingirta magaalada, oo tuulada inta keena gabadhii ku rido halkaa kala baxa. nina waa lugaysiiyaa anigoo kale. aad ma lugeysiisay anu waan lugaysiin doonaaye, laakiin gabadhi waxay igu tiri, gabadha qaabkan kusoo kaxeeyey qaabkan magaalada ku geeyey labay kala noqotay. waa gartay waxay igu tiri, niyo anigu ma raba inaan lugeeyo, waana cabsanayaa, waana yar tahay, ani adigu waa yarnahay, keligeenna ma bixi karne, niman kale inaan kaxaysanana ma rabno, waa cabsanayaa, maxaa see xalaasa. waxaan ku yidhi gaari baa noo hela oo wuxuu noo taagan yahay halkan dhow buu noo taagan yahay nabad, waana been, haye waxba meel kuma ogi. marka ma habeen baa bas waa maalin waa habeen, maalinba yaa gabar la baxa waa lagu arkayaa. okay waa gartay anugu waa kasii duwanoo tayda waaba la ilaaliya. haddii odaygu wuuba ishiishayaaba hadduu maalin gabadha la baxo, macquul maaha inaa wax la baxo baa. haye waxaan ku yidhi gaari baa banaanka noo taagan, halkan tuulada agteeda gaari baa noo taagan, nabad. se waxay ugu tiri, waa yahay gurigaan tegayaa. markaa aan wada hadlayno waa casarkii baa waxaan leeyahay gaariga halkan ku diyaariyey. marka waxay ugu tiri, waxaan samaynayaa gurigay kama soo bixi karo, gurigaan tegayaa. dharkii aliw qofku annagu saan nimcada u haysano u labisano baadiyaha loogama labisto. sanadkan buu qofku dhar soo gadanayaa, wuxuu haysanayaa guga ku xiga kan ka dambeeya, jiilaalka markii laga baxo dayrta dambe buu xitaa sii haysanaya dharkii ku labisanaya magaalada. waxaa laga yaabaa dharkii uu gatay 4 sano ka hor, iyadoo laga baxayo dee 4 jiil kadib inuu soo xirto. gabadhi marka show dhar hore u xariisnaayo meesha guriga uga xariisnaabay diric iyo go intay garbasaar iyo diric iyo kaba ayra soofa bay inta la soo baxday oo sii diyaarsatay casarkii bay habeenkii meeshii aniga aan ka soo dhacay, guriga aan kaga soo dhacay, bay ka soo booday reerkii horey sheex ku cabayo iska bulaamayo iska sheekaysan fiid horeba. markii dee nin iyo geed aan la kala garan, xilli horaan rabnaa inaan jarmaadno moog. halkiiba gabadhii ka soo baxday, anna meel baan ku ballanay, dudun baan ballansanay, dudunta dheer dudumuhu waa calaamad bay kala leeyihiin. dudunta dheer geedka furuurka u dhow agtiisaan ku istaagayaa, geedka furuurka iyo hoobta dhexdooda baa istaagaya. inaa telefoon la iskama wacayo moogta, waa in la ballamo. halkaasaan ku istaagaya, waxaan ku yiri halkaa ku diyaar garow. habeenkaa aan la baxayo habeenna ka horreeyey gabar uu aroosay oday adeerkay ahaa baan u tago. waxaan ku yiri gabadha kaba cusub oo aan la garan raadkooda. kabaha dee caliyo waa lambar, kabuhu waa sida telefoonka kalaa la iskaga wacaa, waa la garanaya, waa nin kuu sheegay. waxaan ku yiri kaba cusub gabadha iigu sii diyaari. arigana kama maarmo, arigu waa muhuraan, ariga in lagu dareeriyo hadba meeshaan maro. reerka waa lasii ballamay. waxaan ku yiri eedo, gabadhii baan lasii hadla, waxaan ku yiri eedo ariga markaan idin dhaafno, ariga nagu dareeriyo, meesha ku dareeriyo raadka noo gada. oo ariga ilaa iyo xaafadanada agteeda ciyaalka inta u dhibto 3 ciyaal guriga joogta. waxaan ku yiri inta ula geesaha kala galaan, ariga halkaa ka baaciyeena guriga reerka ha geliyeen, arigooda ha ku dhex dareen, si raadkana waa halkaa uga gadmo. halka markaa waxaan haysanaa meel fiican oo guul fiican baan halkaa ka gaaro, oo khibradda waa ii shaqays. cidna ima soo habeenkaa inta lay soo raad qaado baa weliba haddaan odaygu idilin gabadhaa layga soo reeban lahaa. aniga in la idilana gabadha layga rabtaa iiga daran, in la idilaaba ii dhaanta. gabadhii kabaa cusub baa la ii siiyey, kabihii cusbaa adeerkeena waan wataa oo kabahayga ma wato, ayadii iyo aniguba kabaheeni ma wadano. raadkiina ariga waa lagu gadayoo ilaa iyo ariga waxaa la kaxaynaya gurigii. mid afrikaan la oran jirayoo ninaan saaxiib nahay oo hadda baadiyu joogaa, inuu idaawan doono garan maye. afrikaan la oran jirayoo lugka dhutin jiray, saaxiib baan ahayn, abaal baa u haya. habeenkaa gabadha waa ila bixiyey. waxaan ku yiri afrikaan tala ma hayo. gabadha waxaan ku yiri gaari baan meel kuugu diyaariyey, gaarina uma diyaarin, aniga ayaduna waa cabsanaynaa, magaaladeena ma tegi karna, kaala na raac baan ku yiri. oo ilaa magaaladii gabadha kaala ila bixi, lacallaa kugu oli waayo, meel nin looga taga ma jooge. waa ii diyaar garoobayoo waa anigii afrikaan waa israacnay, laakiin afrikaan aan la kaftamaya xoogaa khasaaray ii ahayd inuu raaco. nin xoogaa wuxuu ahaa ka lug ka dhutiyo. habeenkii waa iga daala, anigii asagii iyo gabadhii asagii baa daalay habeenkii.
xiyirniyo aan nasano mishin buu igeliyay gabadh ma guulaysan caliyo guul sooma soo socoto sheekada aan ka hor dhaca ma rabee Haye. waa guul daraysana dib dambaan aniga iyo afrikaan iska aragna waxaa ku yidhi waagi inaan guul daraysto adaa kow ka ahaa baan ku yidhi Haye. habeenka haddaada daali lahayn Haye. waa u guulaysan lahaa halkii baan ka dhaqaaqnay meel caliyaal la yidhaahdo magaalada afkeeda ah oo show malaha dee lugtu gaarigu 30 kilomitr gaarigu wax yarba u socdaaye lug hadday tahay baashu waa lug hadday tahay cabaar buu qofku jarmaadaya 1 saac iyo waxbuu sii soconaya iyo bar ama 2 saac dumarna waa nala qof dumarna waa nala socdaayo dhaqso ma dhaqaaqayso aduu saan usii jarmaadayna meel caliyaal la yidhaahdo way garanayaan raacawada qabaan seexana